waxaanu nahay kooxda Anonymous ee daahsoon idima saamixi doono imana ilaawi doono. السلام عليكم اسكسو نقد وناكسن waxaan rajaynaa dhamaanteen in caafimaad qabtaan ciid mubaarak baad leeyahay taa inooga hadhay ciidka Allah inuu gaarsiiyo caafimaad qab qalkanan maanta waxaanu kaga hadli doonaa burcadka dhanka internetka ugu halista badan ee lagu magacaabo Anonymous iyo qaybo kamid ah weeraradii ugu cuslaa ay ka geysteen dhankaas internetka haday noqoto shirkado iyo haday noqoto meelo kala magacaygu Cabdimajid fadlan intaananu gudagelin muuqaalkana maanta ku soo biir kanaalka oo subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada haddii uu ka cajibiyo muuqaalkani mahadsanid anu gudagalno muuqaalkana maanta كانت نشانات waxay ku jira shirkad lagu magacaabo HB Gary shirkadan oo ay shaqadeedu ahayd amaba habka ay u shaqeysaa ahayd in ay ka ilaaliyaan shirkadaha waaweyn amaba dawladaha qaar in xog sirriyeedooda la jabsado oo loo dhaco hadaba sanadku markuu ah 2011 ayaa shirkadan lagu magacaabo HB Gary ay ku dhawaaqday in ay jabsadeen oo ay hagareeyeen kooxdan Anonymous oo ay xitaa ogaadeen cidda madaxda u ah ee ka dambaysa kooxdan daahsoon balse markii uu dhawaaqaas ka soo yeeray shirkadda HB Gary ee uu gaarayna kooxda Anonymous waxay sheegeen in isku dayeen shirkadaas HB Gary inay jabsadaan balse aanay u suurtagelin oo ay ku fashilmeen balse waxay taas beddelkeedu u noqday shirkadda HB Gary oo ay ku sameeyeen kooxdii Anonymous ee daahsoonayd in iyadii ay khalkhal ku ridaan nidaamyadoodii ay ku shaqeyn jireen oo ay jabsadaan oga aad u badan haddii ay noqoto magacyada dadkii ka shaqeynayay shirkadaas HB Gary email-adoodii xitaa telephone number-adoodii waxayna ku faafiyeen baraha bulshada waxa kale oo ay daha ka faydeen kooxdan Anonymous ama daahsoon in ay xidhiidho hoose la yeelatay shirkadan lagu magacaabo HB Gary shirkado badan oo ay midka kale ku diraysa si ay isu dagaalaan waxa kale ay banaanka keeneen xitaa kooxdan Anonymous ama daahsoon ninkii madaxda ka ahaa shirkadaas HB Gary oo lagu magacaabi jiray Aaron Barr oo ay telefoonadiisii iyo ciwaankiisii gurigaba ninkan ay banaanka keeneen ninkaas oo ahaa ninkii amarka ku bixiyay in la weeraro ugu horeyntiiba kooxda Anonymous ugu dambeyntiina waxay website-ka shirkadda HB Gary inta ay jabsadeen ku soo qoreen hadalkan kooxda Anonymous hadalkaas oo sidan u dhignaa idinka ayaa naftiina horseeda waxaan dhacaya waxaan idin bari doonaa cashar aydan weligii ilaawi doonin hala ciyaarin Anonymous. You brought this on yourself. Let us teach you a lesson you'll never forget. Don't mess with Anonymous. It's a warning other companies will no doubt take to heart. kadib khasaaraha aadka u ballaaran ee shirkadda gaarina ugu dambeyntii waxa laga yeeray ninkii Aaron Barr ahaa shirkaddii ninkaas oo ahaa ninkii ugu horeyntii farageliyay amaba isku dayay jabsashada nimankan Anonymous kaalinta afraad ay jabsadeenna Anonymous waxay noo soo galayaa koox diimeed lagu magacaabo Ku Klux Klan amaba KKK loo soo gaabiyo koox diimeedkaas ayaa ah mid ay kaliya xubna ka noqdaan dadka saanta amaba dadka cadaanka ah oo ma ogola kooxdani in ay qayb ka noqdaan dadka madowga ah kooxdan ayaa caan ka dhaxaa dalkaas Mareykanka waxaana ay caan ku yihiin in cunsuriyiin yihiin welibana waxa uu sii dhaarintaas inay dili jiraan ruux kasta oo madow ilaa maantana way ka jirtaa kooxdani dalka Mareykanka balse ma dilaan cidna iminka almuhim waxa arrinka kooxdani KKK banaanka keenay kooxda Anonymous oo ku faafiyay baraha bulshada xogahooda oo dhan iyo xitaa dadyo caan ah oo si daahsoon ugu jiray kooxdan KKK ee cunsuriyiinta waxaana ka mid ah dadyogaas caanka in farshaxanista artist ah oo lagu magacaabi jiray Ben Garrison kadib fadaxadaas dadka badankiisuna way iska joojiyeen ibsashadiisa wargacmeedyadii ninkaas lagu magacaabo Ben Garrison sida daahsoon ugu jiray koox diimeedkan KKK macrad kastaana waa uu diiday inuu soo bandhigo wargacmeedyadaas sidaasna waxa albaab kasta kaga soo xarmay ninkii Ben Garrison ahaa oo ku baabaaday masiirkiisii farshaxanimo kaalinteena saddexaad ee jabsadeen kooxdan waxaa nagu jira dark web amaba internetka madow badankeenuna waynu wada garanaynaa internetka madow iyo shaqooyinka lagu hayo haddii ay noqoto iibinta hubka sida sharci darrada ah amaba maandooriyaha halista iyo xitaa inaad ka kiraysan karto dilaa si uu soo dilo qof aad u tilmaanto amaba aad u dalbato intaas kadib waxay kooxdan Anonymous ay jabsadeen mid ka mid ah website-yada ku guda jira internetka madow amaba dark webka kaasoo lagu soo bandhigi jiray fiidiyoyo amaba muuqaalo carruur la torture gareynaya amaba loola dhaqmayo qaab akhlaaqda ka baxsan kuwaas oo weliba lagula kacayo tacadiyo dhan walba isla markaasna ay jabsadeen kooxda Anonymous waxayna banaanka keeneen shakhsiyaadkii iyo dadyowgii ka dambeeyay website-yadaas iyo xitaa kuwii daawan jiray tacadiyadaas lagula kacayo carruurtaas wadamada caalamka waa ka mamnuuc amaba waa dambi taas oo qofku ku galabsan karo 10 sano falka noocaas ah dadyowga ka dambeeya
kaalinta labaadna waxaa noogu jira kiniisada lagu magacaabo Scientology. ma aha kooxdani kuwa taabacsan diinta masiixiyadda ee waa isbahaysi diimeed gooni ah kuwaas oo aaminsan waxyaabo aad u la yaab badan. waxaana ka mid ah waxyaabahaas ay aaminsanaayeen in ay bini'aadamka ama dadku ay ka yimaadeen waxa la yidhaahdo fadaayiinta ama bahalaha la sheego inay xagga sare ku nool yihiin oo ay dhulka kaga tageen dadka dhawaanna uu baabi'i doono dhulku keliya tan ay hadhi doonaan dadka diintan Scientology-ga aaminsan oo ay badbaadin doonaan fadaayiintaasi kadib marka uu dhulku baabao. intaas kadib talooyin aaminsan bay isleedahay dad daawada khuraafaadka balse waxaa jira daawada dadyow aaminsan diintan khuraafaadka ku dhisan dadyowgaas oo ay xitaa badankood yihiin caan kuwaasoo ka tirsan shaashadaha filmaanta amaba shirkadda Hollywood ee soo bandhigta filmaanta. waxaana ka mid ah dadyowgaas sida ninka lagu magacaabo Tom Cruise, John Travolta iyo kuwo badan oo kale. haddaba sanadku markuu ahaa 2008 ayaa waxaa ku faafay dalkan Mareykanka inay isbahaysi diimeedkan lagu magacaabo Scientology ay xidhiidho hoose oo akhlaaqda ka baxsan ama sharci darro ah ay sameynayaan oo aan cidna xisaabinayn ama wax ka weydiinayn arrinkaas. intaas kadib kooxdii Anonymous ahayd ayaa soo gudagashay arrinka koox diimeedkan lagu magacaabo Scientology oo jabsatay seefaradoodii iyo kombiyuutaradoodii waxaana ay kala baxeen xogo aad u muhiim ah balse ma aysan faafin xogahaas ilaa video amaba hal muuqaal oo wareysi ah oo lala yeeshay aktarka aynu wada garanayna Tom Cruise. videogaas ayaa wariyuhu waxa uu weydiinayaa in lagu magacaabo Tom Cruise koox diimeedkan lagu magacaabo Scientology waxa uu ka aaminsan yahay balse jawaabta uu bixiyay Tom Cruise ayaa ahayd mid la yaab leh oo bugiga been ku dhisnayd. Or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. Being a Scientologist, you look at someone and you know absolutely that you can help them. isla markaa ay aragtay koox diimeedkii Scientology videogii waxay ku amartay inuusan wariyahaasi faafin muuqaalkaas balse kooxdan Anonymous ayaa sii deysay oo YouTube-ka dhigtay videogii wareysiga ah waxaana uu muuqaalkaas ugu faafay baraha bulshada si aan caadi ahayn oo waxa daawaday dadyow aad u badan. intaas kadibna waxay isla markiiba koox diimeedkii Scientology maxkamad ku qaaday shirkadda YouTube oo ay ku qasabtay inay ka delete gareyso videogii barta ay YouTube-ka ku leedahay kooxdan daasoon ee Anonymous. isla markaana shirkadda YouTube ay ku qasbanaatay inay delete gareyso ay ka saartay videogii balse kooxda Anonymous markay aragtay in laga saaray videogii YouTube-ka waxa ay ugu abaalmariyeen koox diimeedkii Scientology inay xogo ka muhiimsanaa videogaas ay baraha bulshada ku faafiyeen waana ay dhacday waxaana ka soo horjeestay ama bilaabmay mudaharaadyo badan oo lagaga soo horjeedo dalkaas Mareykanka koox diimeedkan Scientology waxaana dhacday ugu dambeyntii inay noqdeen dadyo hantidooda ku ilaashanaya meeshan kiniisada ama meeshan isku magacaawday diinta gaarka ah Scientology sababtoo ah dalkaas Mareykanka shuruudaha laga qaado dadka waa ay badan tahay ama waa qaali laakiin se marka ay noqoto goobaha diimeedyada si masaajidada ama kiniisadaha lagama qaado waxa shuruuda sidaas talaadeed ay hantiilayaasha ama dadyowga caanka ah ku jirayna ku ilaashanayeen meeshan kiniisada hantidooda si aan waxa shuruudaha looga qaadin. kaalinteena koowaad ayaa waxaa ku jirta shirkadda Sony ee caanka ku ah ganacsiyada kala duwan ay noqoto kombiyuutarada gameska la ciyaaro iyo dhanka filmaantaba. haddaba weerarkan ay ku qaaday kooxdan tugada ah ee Anonymous ayaa waxa uu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu soo qaado shirkaddan Sony. weerarkan iyo jabsashadan oo ku aadanaa dhankaas iyo PlayStation-ka shirkaddan ka taabacsan shirkaddan Sony ayaa waxa uu sababay sanadkii 2008 muddo bil ah inay shirkaddan Sony ku khasaarto lacag dhan malaayiin dollar. weerarkan oo ay ka dambeeyeen kooxdani lagu magacaabo Anonymous. ugu dambeyntii muuqaalkan waxaan ku soo gabagabeynaya waaniga hawlaalkan Cabdimajid Sooman haddana Ooman inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.